ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yar yaroo sakayna ku mashquulaan waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka yaad saaqidi oo ka warran yowmulqiyaama haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka warran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceebowdo yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nebi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka warran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joognoo dhamme waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka warran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba laysla gaadhin kaana 50,000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sannadooda 50,000 oo sannadood baad taagnaanaysa 50,000 oo sannadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay 50,000 oo sannadood baad waxaad hadhsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogayn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naagaa quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxaa la yidhi iyagu carshuraxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka warran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatee biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka warran 50,000 oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan ha raadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaayaa kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxaa laydinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaaftaa la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barrul ammaan xaggee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhan kuu kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargaysaad joogtaan bal suuqa hargaysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebelunbaa maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargaysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayban asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin
xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta leh markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waad tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kalaba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weyddiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weyddiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala